السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال halkani waa Xuseen Mandela wan salaamaya daawada saaxiib bayaal waxaan mar labaad inagala boganayaa sheekooyinkayga hore ee aad imika wada barnaamijyada aad ku qanacdeen oo daawateen ayaan hadana mar labaad iniga sheekeynaya sheeko cusub leh oo la yaab leh oo qiso ah oo taydii aniga igu dhacday iyo waayihii nololeeda igu hareysnaa baan mar labaad sheeko u gali doonaa waxaan ka sheekeynayaa bari aan tagay Djibouti aan u soclaaday oo aan waaya aragnimadeedii aan ku darsanayay inaan derbi chief giyaar hurda ama hotel gelayo ama bir qaadanaya ama baalsho noqonaya ama rafaadayo dhibaatoonayo giyaar saxanayo dhaxanka toosiya in badan ayaan safari iyo dhibaato hore u soo maray laakiinse because hadana waxaan kaga sii badan jiray inaan dhulalka maartay wadanadan igu dhowee aan tagi karay gaarigu aadi karo aan diyaarada aadi karin ayaan tagay Djibouti baan aaday waxaan muddo badan Djibouti joogay muddo gaaraysa hal sano halkii sano ayaa waxa dhacday taariikhdii igu la yaabka badnayd ee igu rafaadka badnayd ee igu dhibaatada badnayd ee aan ka murugoodan ka ooyo ayay ahayd mar walbana waxaan Ilaahay tala saaran jiray maalintaasi waxaan baan idhi mamlaahani khatar baabad ku jirtaaba daajo iyo rafaad iyo dhibaato ayaa ii soo martay ka bacdi anigoo Djibouti joogo baalashaynaya baan baalashkii gabadhii timid xabashiyada igu tiri meheradayda ma ka shaqeyn dadna waxaan ku yiri waay waan ka shaqeynayaa meheradaada maxaan kaaga shaqeeyaa say igu tiri weelkaadii meeraysaa lacag yaro ilaa 1,100 bay siin jirtay faranka Djibouti ka bacdi intii yareed markaan isku urursaday ee aan 2 bilood joogay ayaa bishii saddexaad ay dhalatay bishii saddexaad labadeedii ayaa waxa dhacday inaan aniga oo guudka fadhiya oo baradho gogoynaya niman booliis oo jadaarana ay dhinaca dambe iga yimaadaan ka bacdi budad yaroo gaagaaban oo budadkan maartay dadka la dhaco ay dhinaca dambe iga taraan dadana halka madaxa ayay iga dhufteen budka oo halkay naftu ka dhacdo weeyaan ka bacdi dhiig baa iga yaacay oo kuleylna way ahayd xagaana way ahayd dhiigu daato farabatay ka bacdi waxay geeyeen meel nagaar la yiraahdo oo ku yaala halkan loo yacad laga soo galayo Hargeysa Dameerajoog agteeda oo nagaara dabatana halkii baa la igu xiray waxa la qaaday 2-3 cisho ayaan nagaar ku jiray waxaan cunayay bariis joog lagu soo riday oo qalalan oo adag oo aan biyaha inta isku dhaxkaris laga dhigay adagoo cunaha ku mari waaya ka bacdi maalintii jimcihii baa la qaado leeyay Galiila meel la Galiila waxa isku jirtaa waa halkan ilaa iyo Cali Sabiix waxa weeyaan tirahaan markan qiyaaso waa intaasoo kilometer mitirkan kiisa badan oo inta uga sii badan ka bacdi halkii waxana lagu qaaday 530 dhalinyaro ah oo haween iyo iskugu jirta inamo Ethiopian in badan ugu badan oo Galiila lagu tuuray meeshan diridaba xuduudka diridaba ka bacdi wax Soomaaliya waxa ku jiray 2 hablood iyo 3 inamood ka bacdi waxaan noqonay dhinacoogi ayayna geeyeen nagu tuureen anagu dib baan soo noqonay waxaan ku soo noqonay Cali Sabiix ka bacdi Cali Sabiix baan joogay waxaan yar lugeynay intii Galiila ila Cali Sabiix hal saac 2 saac ma hal saac ka bacdi waxaan tagnay Cali Sabiix baan tagnay Cali Sabiix waxaan dadka ma garanayo magaaladana waan ku cusubahay cid magaalada degan waa la yaqaan cid degan ka bacdi cidii degneyd iyo magaaladii markaan rafaadkii iyo kuleylkii xagaagii la yar adkeysan waayay baan waxaan sameeyay nooca halka saaxata iyo magaalada ma ka lugeysaayo dib Djibouti ma ugu noqotaa ka bacdi maalin baan waxa dhacday habeenimo ilaa casar baan soo galnay 5tii iyo barkii ayaanu waxaan tagnay nin la yiraahdo Rashiid Gabayo oo gobolka xukuma gurigiisaan seexanay habeenkii buu nasaxiyo u hooyay ka bacdi wuxuu soo dhawaada waan nasaxinayaa habeenkii baan seexanay inaan labadii hablood iyo aniga halkii baan seexanay aroonimadii ayaan soo ranay bal ninkii inuu soo tooso dabeetana waxa la yidhi war uu hurdaa ninkii ordo iska lugeeya gabadhiisi baan ugu tiri waan iska lugeynay
deetana labadii hablood waxay dhahdeen anagu ma lugeyn karayno rafaadna gali karamayne waan iska fadhiisanaynaa anigii afar oroma oo anigu aan shan ku ahay ayaa lugeynay waxaan soconay laba habeen iyo laba maalimood ayaanu rafaad iyo dhagaxaan waaweyn iyo ban cad oo intee oo kilomitir oo mitirkiisa la tirin karin ayaanu dhex soconun oo dhex difaacayn anigu naakiinsa waxaan ka ruug halka labada ruug iyo labada undune lugaha hoose ayaan aad uga daalay ka bacdi heer waxaan gaaray inaan fariisto oo aan gurguur isku maro buurtuna waa dhagaxaan madow hal abees iyo hal mas iyo hal xawayaan male oo dhulka xawayaan kama jirto ilaahayna uu naga ilaalinayo ilaahay baan la jirayba labada habeen iyo labada maalmood soo soconay waxaan ku noolayn biyo cadaana oo biyaha ma aragtay milixda ee ay badu milixda way ceelisaayo waxay ka dhigtaa milix caadi oo milixdeena caadiga cuntada lagu tarsado iyo biyo yar oo ay ku reebto tiibanu cabaynay labadii habeen iyo labadii maalmood anagoo rafaadnay oo dhibaatoonay ayaanu soo galnay caasimadii Djibouti heer waxaan gaaray rafaadka iyo dhibaatada iyo inta habeen labada habeenimo soo socday jidkii hore ee igu horeeyay aan rafaad ku soo galo taasa ayaan dadnayd iguna la yaab badnayd iguna xanuun badnayd jirkeyga xitaa burbur baa ku dhacay xanuun daraadeed socodkii ayaa xitaa aan maalintii labaad sidii magaaladii markaan soo galay waaban curiyaamayba dib ma bakicin ba ardasan 5 cisho ilaa 10 cisho ay gaaraysa ma bakicin ka bacdi markii aan nastay xoogaa ayaan kacay oo aan socodkayga hagaagay laakiin intii ka horeysay luguhu waxay noqdeen way barareen oo way ka sii dareen socodkii badnaa baa dilay iyo barar badan gaajadiina way ugu hadhaysato jidhka oo dhan damqashadoodii oo dhan bay damqaday ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iga badbaadiyay taariikhda noloshaas oo dhan ayaan daawadayaal soo maray taasina waxay sheeko weyn oo qiimaha nolosha qof walba uu garanayo oo waayaha nololeed rafaadkii hore aan soo maray oo kale waxa weeyaan rafaadbad maalin buu ku hareeraa dhibaatooyinka aqabadaha qofka ku hareerta waa taa sheekooyinkeena dambe insha Allah ayaa ka budan doontaan taasina waa tii ugu wardambeysay aan inii soo jeediyo insha Allah war xiisalo oo kalena waan inii soo wadaa daawadayaal sheerka iyo commentiga igu badiya ina taageera waana jecelahay walaalayaal hambaliyo Hussein Mandela